بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كسو دوادا هذا أكاديمي waxaan sii wadnaa casharadeenii ahaa buugga fanfoorka xisaabta marka waxaan ku jirnay exercise-kan 1.3 ayaan ku jirnay exercise-kan marka su'aashii koowaad su'aashii labaad waa soo xalinay exercise-kaas baartidiisa hore ayaan ku soo xalinay marka hadda waxaan ka bilaabaynaa su'aasha saddexaad marka waxaa la use isticmaal an identity to write sa u qorto each expression as a single trigonometric function oo qorta laga rabaa hadda waa ujeeda laba function oo kala jara marka waxaa laga rabaa as a trigonometric function kale in uu qorto oo single ah okay marka maxaan sameeynaa qaacidadan si fiican dad u fiirso su'aasha meesha ku qoran ama expression kan dad u fiirsato wuxuu og yahay iyadoo lagu yiraahdo kale cos square a minus sin square a ya iska la jira qaacidadaas double angle ka fiiri double angle waxa costa waxay lahayd jirta qaacida cos 2x qaacidadu waxay ahayd cos square x minus sin square a marka cos qaacidadeedu waa okay tan marka aad u fududa waxay la mid tahay intaan waxay la mid noqonay marka cos 2x adoo yiri kale waa marka cos 2 meesha x ka dhiilaad maxaa gelinay marka 15 ayaa ku galaysa inta waxay ku sii noqonayaan marka cos soddon ay ku noqonayaan cos soddon waxay la mid tahay taqaana waa radical 3 of 2 marka su'aashaas intaas ayaan uga baxnay waxa u gudbaya su'aasha qaybteeda b aan u gudbaya okay su'aasha marka saddexaad b-da fiiri waxa ku qoran 1 minus 2 sin square 22 half degree okay 22 and half degree intaana ku qoran marka inta ayaa laga rabaa inaad marka aad si ilinta adigu isticmaalaya aad u qorto as a single trigonometric function aad u qorto okay marka aan sameeyno okay marka qaacidada markay ku qoran tahay waxa laga rabaa as a single oo hadda single ma u qoran single uma qoran kana function u taagan okay one function u taagan kala iska ilaali waxa laga yaabaa in laga wado 1 oo ku dhacsan sin x oo power 0 macnaha laga yaabaa in ku dhacsan marka kan uu function noqon kara marka waxaad u qortaa as a trigonometric function laga rabaa inaad u qorto okay marka dad u fiirsato qaacidadan 1 minus 2 sin x oo kale adigoo macnaha isticmaalay kale la mid 1 minus 2 sin a ya square a la jiray waxa la jiray costa wali costa iska qaacidadan qaacida sin 2x marka qaar waxa la mid ah jirtay ama qaacidooyinkeeda waxa kamid ah 1 minus 2 sin square x kamid ah marka qaacidadan waxa iska double angle formula ay isticmaalaysa marka ayadana sidoo waxay la mid tahay cos 2x meesha ka dhigay maxaa dhahay marka meesha cos 2 marka soo qaadato bracket furanay bracket marka furato okay angle kan iska habe kan ku dhufo kan ku dar iska habe waa mixed number waa marka kan ku dhufo 44 ku noqona hala ku darsamay marka wuxuu ku noqonaa meesha 45 of 2 ay ku noqonaysaa okay 45 of 2 ay ku noqonaysaa okay kadib maxaa dhaca meesha 1 iyo 1 waa iskan salaya meesha waxa ka soo baxay cos 45 degree cos 45 degree hadda waa taan waxay la mid tahay radical 2 of 2 ay la mid tahay iyaduna intaas ay ku egta su'aashaas b okay marka su'aal si aan fiirino intaan ayaa noo qoran marka intaan ayaa ku qoran waxa ku qoran tan 51 ama tangent 51 degree 1 minus tan square 51 degree intaas ku qoran marka iyadana waxa laga rabaa inaad u qorto as a single trigonometric function ama as a single number inaad u qorto okay meeshan waxa la sii socotay hadda aan qorin as a single number inaad ka soo saarto macna single number one value or number inaad ka soo saarto okay marka qaar way ku noqon number inaad ka soo saarto marka qaar way ku noqonayaan waxa aad trigonometric function base ka soo saarto okay inta marka haysto maxaa dhacay marka meesha isma iska fiiri okay hadda qaacidadan fiirido oo double angle dib ugu laabato inta kaliya 2 hadii lagu dari lahaa waxay aad ay la mid noqon lahayd tan 2 theta maxay la mid ahayd 2 tan theta 1 minus tan square theta la mid marka 2 dia inta ka maqan marka farsamada meesha ayaan sameeynaa okay intaan waxay la mid tahay ayaan leenahay waxay la mid tahay barakadan furana okay waxaan leeyahay marka tan 51 degree oo loo qaybiyay 1 minus tan square 51 okay inta hadaan ku dhufto ka war laba loo qayb waxay taray 1 ay noqonayso ma waxba ka bedeli mee laba hadii loo qayb waa waxba ka bedeli mee inta laakiin farsama meesha u keensaday waxaan rabaa 2 marka inta inaan ku furto intaan half ku reebto okay marka meesha waxay noqonaysaa 2 inta ku dhufo waxay noqonaysaa marka 2 tan 51 half kina banaanku u yaala half banaanku u yaala okay ila kan labada hadii la qaado inta wana ku harso half banaanku hara marka half banaanka dhigo intana 2 aan ku furay oo isla 2 sareeyaan ku dhufto macna hoosna sidii igu soo qaad waa 1 minus tan square 51 hadda qaacidadii si toos ah u ekaatay marka qaacidadii si toos ah u ekaatay intaan waxay la mid tahay tan 2 theta la mid tahay marka half-kii la ii soo qaad bes half-kii ii soo qaad okay intaan maxay la mid tahay la iska yaqaan waxay la mid tahay tan 2 theta 2 soo qaad booska theta maanta waxa kugu jira 51 ayaa kugu jirta degree okay kadib maxay sii noqonaysaa meesha waxay ku sii noqonaysaa half oo ku dhacsan tan 51 da ku dhufato laba hadda waa 102 soo 102 ma okay waa 102 marka inta waxay ku noqonaysaa 102 degree ay ku noqonaysaa
tan 102 degree half hadii lagu sii tan half ka iska soo qaado meeshan waxay ku sii noqonay meeshan okay half ayaa iska soo qaadanaysa marka waxay ku noqonay meesha half kiisa igu soo qaad bracket fur tan 102 degree meeqay la mid qiimaha war calculator geli waxa ku soo bixi doona minus ay ku soo bixi doona waxay ku noqonaysaa minus 4.7046 ay ku soo waxa ku soo bixi doonta minus 4.7046 ay ku soo bixi doonta intaas da half ku sii dhifato waxay heli doontaa minus 2.35 minus 2.35 23 okay 23 ayano inta 5 aan ka rabaa okay waa 5 سبعة قرأ أوكي أنت سيعمل كعصا بحين example كاس أنت أنت سيكون أنت سؤال سي أيضا وحكى عصا بحين أنت تسمع له قدرة تان 51 1 minus تان square 51 لو قيشنا فرصة أنا ماشي وكان لبعض كور كله فتي هافنا بنان كورة مركز أنت أنا وحلا متاعي تان 2 ثيتا 51 واي مركز كله فو تان بقولي لو أنت أقولي أنت هاف يكون سيلو فمركز حكوا صباح النمبر كان سيكون صباح دون أوكي تاسين أنت سيكون أكتر اوكي marka su'aasha saddexaad aan wali ku jirnaa exercise 1.3d fiir su'aasha dhii marka waxa 1/8 sin 29.5 degree oo ku dhacsan cos 29.5 degree ayaa haysta marka intaana waxa laga rabaa inaan u qorto as a single trigonometry function inaan u qorto ama number to ka soo baxay number soo saarto okay marka aan sameeyno marka maxaan sameeynaa meeshan okay si fiican soo fiir farsameeyo meeshan la sameeynaya okay waxa haysta 1/8 oo ku dhacsan sin 29.5 degree oo ku sii dhacsan cos 29.5 waxaan rabaa qaacidadina oo ekaysiyo qaacidada hadda uma eka qaacidada macnaha sin ta xoogaa u egto ilaa sin 2x cos 2x waxa la hajirta moogtahay sin 2x iskala marka uma eka number badan ku jira meesha marka waxaan rabaa farsamo ahaan number wax aan meesha wax ku soo wax keenan rabaa okay inta waxaan ku dhufsan 2 sidoo kale 2 hoos dhiga 2 waxa ka bedelmay macnaha sideedii waay 2 dad ku dhufato way isla baxaan wana noqon Soomaali waxa ka bedelmay marka farsamo ahaan loo keenay waxaan sameeynaa 1/8 labadan hoosaan ku dhufana kan banaanka u saara 2dan gudaha ku reebana marka waxaan sameeynaa 1/8 oo waxa half-ka ku dhacay 2dan banaanka gudaha u gali meeshan waxa ka soo bixi doona 2dan inta ku dhufo 1/8 banaanka soo 1/8 dan banaanka soo saar 2dan hoose 8 kan isku dhaca waxay ku noqonay 1/16 ay ku noqonay okay kadib bracket furo 2dan sareeyana intay aaday inta ku dhufo waxa tiraahdaa 2 sin 29.5 cos 29.5 ay ku noqonay okay inta marka haysta hadda waxa soo baxda qaacidadii sin ta soo baxda oo dhawala galka 1/16 sida ay u soo qaad 1/16 bracket furo inta waxay la mid tahay sin 2x ay la mid tahay sin 2 laakiin maanta booski x waxa ku jira 29.5 degree laba ku dhufo marka waxay ku noqonay inta waxa soo baxay 1/16 oo ku dhacsan sin hadda 29.5 ku dhufato waxa ku soo bixi doona sin 59 ay ku soo bixi doonto waxay noqonay marka sin ku qoran tahay 59 laba ku dhufo inta waxay ku noqonay 59 degree okay hadda marka intaas ay noqonaysa su'aashaas su'aasha dhii waaye intaas ay ku egtay